salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. halkanina waa taar t v daawade ku soo dhowaada barnaamijkeennii waxweydiin ogaal ka sheegne. nabadoonka guud ee beesha naaleeye axmed nabadoon maxamuud ashkir jaamac ayaa gaashaanka ku dhuuftay shir ay qabsan lahaayeen beesha naaleeye axmed. wuxuu sheegay nabadoonku in shirkaasi uu yahay mid lagu kala dilayo ama lagu kala fogaynayo beeshiisa naaleeye axmed. nabadoonku wuxuu sheegay in shirkan lagu doonayo garaad cankamud ah ama cunaduub ah oo la mid ah cadka loo yaqaano sarreeye bawdo. wuxuu tibaaxay nabadoonku inaanay dhacaynin oo jiraynin oo soconaynin in loo sameeyo laba garaad oo kala hooseeya beesha naaleeye axmed, taasoo lagu kala geynayo goolle iyo laba garday ama dhiidda iyo waraaq. wuxuu tilmaamay nimanka wata garaadka cusub ay yihiin dabaallo ay ku adeeganayaan dad yow shisheeye oo kala baacinaya midnimada iyo iskuduubnaanta beesha naaleeye axmed. waxaan ku soo noqday shirka kanu waxa weeyaan inqilaab dhaqan, haddii ay tahay garaad, hadday tahay cuqaal. halka waxa garaad cusub baa laga wadaa, waxaa kaloo laga wadaa cuqaal cusub. annagoo suuqa joogna ayaa inama yaryar la magacaabaya oo laleeyahay sidan weeye. wuxuu caddeeyey inay tahay mid loogu midho sheeganayo beesha cabdi maxamuud oo lagu diidan yahay inuu laangaablaandheere u taliyo. wuxuu sheegay inay taasi tahay waxyaabihii lagu dhaqmi jiray xilligii madooba ee laga soo gudbay ama lasoo dhaafay. nabadoonka oo hadalkiisa sii wata ayaa ku eedeeyey axmed karaash iyo inta la halmaashay inay dusha nagaga keeneen garaad magacuyaal ah oo fuliya danahooda gaarka ah amaba iyagu u fuulaan hadba halkii ay doonaan. nabadoonka oo hadalkiisa sii dawinaya ayaa hadalka ku soo afmeeray inuu qorshahani yahay mid siyaasadeed ama mid xeeladeed amaba burbur ama kala kaxayneed amaba kala fogeyneed oo lagu kala dilayo beelaha walaalaha. isaguna suldaan cabdiraxmaan xaaji xasan jaamac oo ku magac dheer suldaan waran oo aanu kula xidhiinay habeenka codfogeeyaha ayaa noo caddeeyey inaanay waxba ka jirin wararka sheegaya in ceelka jabuuti la cagagsanayo ganacsatada iyo qolyaha farataagtaagka dambaabay reer somalilan. wuxuu sheegay in dadku ay sidoodii u wataan shaqada iyo farataagtaagga ay ku leeyihiin dalka jabuuti iyadoo aan loo geysan wax daqaaba ah oo lagula kacay. wuxuu sheegay inay lagama maarmaan tahay sidii looga fogaan lahaa wararka kutirikuteenta ah ee aan la haynin kasiinadooda iyo rushadooda dhabta. wuxuu isdul taagay in dadka reer somalilan iyo kuwa reer jabuuti ay isku yihiin uliya diirkeed, islamarkaana aanay jirin wax soo kala dhex galay tiyo haddii laga tegi waayana ay dhalaartii shalay dhacday in la xidho laba nin oo dadkooda ka mid ahaa kuwaasoo markii dambena laga dhigay madaxaa bannaan. wuxuu noo betiyey suldaan waran inuu shalay ka soo boqolay ceelka jabuuti, isla jeerkaasna aanu arkin oo u soo joogin wax ganacsata oo kabtooda xana la gelinayo amaba la daba qoobinayo. iyana waxaa ka muuqanaysay baraha bulshada ee la istoocsado dhallinyaro ciyaal iyo carruur isugu jiray hable iyo wiilil oo banaanbaxyo ka dhigahaya gudaha magaalada dhaxar ee ay cawsadaan beelaha warsangeley, kuwaasoo kor ulayay calalka maamulka maakhir. waxay sidoo kale ku dhawaaqayeen inaan la tusi karin wax maamul ah oo kale, gaar ahaan kan puntland iyo kan laga madhowdheeyey bariga magaalada laascaanood. waxay sheegeen inaan la afduubi karin oo cid gaari waxba u yeedhin karin, islamarkaana ay doonayaan inay ka tashadaan aayahooda iyo waxa ay u leeyihiin gariyo dawga. nin soo dhex galay carruurtan qaylinas ayaa tibaaxay in la iska qabto horgallada iyo kuwa kabaqaadka u ah reeraha kale. waxa uu ku goodiyey inay cunaha kala goyn doonaan qolyaha u shaqaynaya maamulka majeerteeniya oo aan biitaayo ka qaban deegaamada beelaha warsangeli, gaar ahaana dhinaca fayadhowrka waxbarashada iyo biyaha ama waraabka. shacabka maakhir waxaanu leenahay lama jujuubi karo, xogna laguma haysan karo. shacabka maakhir waxa weeye dadka jujuubayana maanta waxaanu leenahay aabbo gacal iyo horgalaatihiin, surkiinna waa la jarayaa. laamigaasa haadidu ku cunaysaa, haadaydu cunaysaa. haddaba muuqaalka bannaanbaha carruurta reer dhahareed ayaa qabsaday baraha bulshada, kaasoo ay ka dhalatay falcelin baahsan. arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli laga qalqaalinayo ceelka xamar maamul loo cumbul-caambulo reeraha maakhir, kaasoo ay tatabinayeen dar u badan qurbajoog ku ayoota oosha warsangeley, kuwaasoo isugu qoor laabay magaalada muqdisho, islamarkaana soo saaray go'aamo iska ahaa xaydha jecli beerka jecli. weli halkaad nagala socotaan waa taar t v. mid ka mid a salaadiinta somalilan, gaar ahaan oosha garxajis oo lagu magacaabo suldaan cawil oo soo orobsaday warbaahinta, ayaa sheegay inaanay beelaha harti waxba ka qaban ninka iminka la baxay ina jaamac baadi, kaasoo garaad u ah beelaha dhulbaante. waxa uu ka codsaday reeraha xagga inay samaystaan garaad kale maadaama oo uu kaasi nijaasoobay ama wasakhoobay.
wuxuu sheegay inuu boqor buur madow keligii abbaaray isaga halka uu ina jaamac baadina isku qaaday beelo dhan oo wacay iyo weliba jaayfo u geystay loo jawaabayna afarta murjay ka qayliye ninka jaamac baadi la yiraahdo ugu magac jaamac baadi baan u naqaanay garaad oran maynee oo magaca cusub uu yeeshay kana gooy maayo magacaas baharsamo waxaan leeyahay shaabad baa ku dhacday nin maanta boqor cusub samaysta wuxuu tilmaamay inay ka beel ahaan ku garab joogaan boqor buur madow hadalka uu gabalaha ka cadeeyay ee uu ku soo bandhigay qofka uu yahay alka uu ku dhashay iyo weliba cidda dambaabta kaasoo aan ahayn ina garaad cali oo ku dardaarmay inaan boqortooyada loo dhiibin oo duubka loo meerin oo aanu bah u talin oo aanu beel u talin wuxuu tilmaamay suldaan cawil inuu boqor buur madow yahay afayeenka beelaha Idoor isagoo u madax bannaan inuu ku hadlo wax alla wixii afkiisa ka soo baxaa maadaama oo beelaha hartiba aanay ka shaqaynin sidii ay ina jaamac baadi uga durraaman lahaayeen inuu afkiisa laba liira saarto haddii dadku guul helo oo ilaahay guul basiyo cid dagaalama inuu ama ku faano ama la fadhiyaabay hayde inuu cayun miciinsado may hayn wuxuu sheegay inuu arkaayo qaar Idoor sheeganaya oo buur madow ka bixinaya raaligelintaas oo aanu cantamin waayadeed miyaad aragteen buu yidhi qof dhulbaanta oo harti ah ama daarooda oo xaal ka bixinaya ina jacbaadi waxa uu ka dalbaday suldaankani inuu cafis u fidiyo madaxweyne biixi ninka la yidhaahdo boqor cismaan buur madow kaasoo xilligan taagan halkii lagu yaqaanay nimanka habar jalo buur madow cafi iyo musaamax u fidi wuu galabsaday wuu mutaystay wixii hore uu ku hadlayay waxaan dambe qarannimada uu soo jeestay ayaa ka maydhay wuxuu soo qaatay gabay uu ku sheegayo inay habar jalo tahay teedka adag ee loo soo dhaafi kari waayey beelaha Idoor kaasoo uu mariyey ee Baawur Axmed Abwaan Salaan Maxamed Xirsi oo Salaan Carabi loo yaqaanay kaasoo ay ka mid ahaayeen nin isaaqa godobtii raban gaarka ka hayaaya gusiskii baddaan uga dhignay gebiga daarood weli halkaad nagala socotaa waa Taar TV waxaa magaalada Muqdisho lagu qabiray ama lagu dhuuxiyey nin ka soo muuqday baraha bulshada islamarkaana waayeelaa ninkaasi oo ku baaqayay inuu lacag baaha u ururinayo madaxweynaha hadda jira ama jooga ee wambarka Qomaara ninka waayeelka ayaa lagu sheegay inuu markii horeba ahaa dadka ku taba doonta ama ku shaqaysta waxa loo yaqaano meelmeerka oo noqonaya dawarsigaasi ahaatee wuxuu ninkaasi ku baaqay inuu jiro nin isaga ka liita oo maanta uu gelinayo halkii uu ku jiray maadaama oo uu suuqii ku soo ciidhiyey wuxuu tilmaamay inuu ninkaasi yahay ninkii dhaafi waayey xabaalaha ee kala soo baxay golfafihii iyo weliba baydhiqii ku duubnaa laakiin madaxweynaha baahida waa deyn laada qabuurihii minow gatay baddi minow gatay minow gatay markaysaa saybiyaano minow gatay ceelasha minow meel kasta gatay minow kawaankii oo gatay oo malaayiga oo bakaaraha waa la socotiin wuxuu sheegay ninkaasi uu yahay ninkii urursaday wixii agabare ahaa ee aqal lahaa ee guri lahaa ee dhul lahaa ee dhismo lahaa ee buur lahaa ee bad lahaa ee bannaan lahaa marka aniga galabta laga bilaabo waxaa lii soo xisaaray sadaqo inaan u aruuriyo madaxweynaha wuxuu intaa ku daray ninkaasi uu yahay ninkii xatoobsaday wixii guda yaalay wixii dibad yaalay wixii gerbi yaalay wixii gawis yaalay iyo weliba wixii gesin yaalay wuxuu sheegay inuu ninkaasi yahay nin caydh la tuuyoonaya oo aan iska furin oo aan iska faydin oo aanay ku bixin oo aanay ku noolayn oo aanay u hoyan oo aanay ka hoyan oo aanay soo gelin oo aanay ka dareerin in la wada jiraba wuxuu ninkaasi tax dhigay inuu yahay xasan sheekh maxamuud oo afka la meeraya kaasoo aan xunshada xaarka uga kacaynin islamarkaana la wareegaya gorobta caydheed oo gatay baahida waa deyn laada ugu dambayntii waxay taasi soo waldaamisay ama soo weeraamisay ninkaasi lagula eerto gaal shiraha ama godka jiracow iyadoo la weydiinayo lacagtii uu soo ururiyey inta ay noqotay iyo weliba inta ay leegtahay ama halkaa uu geeyey intaa warranay waxaanu ku darnay moogin wax weydiina waa ka sheegnay maxamed aadan dirsan iyo kulanti daba nabadgelyo iyo nooli kulante waxaa dib loo bilaabay qaybta labaad ee dhismaha masjid jaamaca Caynabahe Macallin Xirsi kaasoo ay maanta si rasmi ah u dhagax dhigeen maamulka gacanta ku haya dhismaha masjidka Maxamed Macallin Xirsi Axmed oo halkaa ka hadlay kadib markii masaajidka dabaqiisa labaad la dhagax dhigay ayaa sheegay inay qaybta labaad jaajuurkii gelayay ay qaateen dad muxsiniin ah loona baahan yahay ciddii wax ku darsanaysa ama ka qayb qaadanaysa waxaa madasha dhagax dhiga kadib injaaqay oo hadalka isu daba joogsay dhammaanba culimadii iyo wadaadadii goobjoogka ka ahaa kuwaasoo ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay in laga qayb qaato dhismaha guryaha eebe iyo goobaha cibaadada fadlan wixii faahfaahin kala xidhiidh lambarada shaashada kaaga muuqda oo ay ku yaalaan akoonada gaarka ah ee masaajidka waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala hadbigeena ha dhaafo marka hore maanta waxaynu u joognaa oo halkan ka aragtaan saynka xagga dambe ee dabaqii labaad ee masjidka oo runtii aan ku hamiyeynay markii aan ku guulaysanay nimcadan hoose maanta aan joogno markii hore baan hoosta ka xariiqnay inaanu baahidaas aanay marna
marnaba buuxsamayn oo loo baahan yahay sababtuna nagu kaliftayna waxa weeye walaalayaal magaaladu waa koraysaa runtii oo magaalo aad u ballaaran mujtamaceedu waa ballaaran yahay jimcayaasha qaarkood masaajidku wuxuu ku dhowaan jiray buux buu ku dhowaan jiray hadda taraawiix oo kale dumarka waa ku cidhiidh wuu buuxsamaa waxyaabo fara badan baa soo socda ciidaha soo socda waxbarasha insha allahu tacaala aan rajaynayna in looga faa'iidaysto waxaan doonaya in looga faa'iidaysto salaadaha oo waad garan kartaan roobo baa iman kara waxyaabo badan baa iman kara marka runtii baahidii dabaqu way taallaa waana xaqiiq waanu aragnay in loo baahan yahay marka waxaan doonaynaa walaalaha ka qayb qaatay dhismihii hore masjidka kanaynu hoos joogno mid guda jooga iyo mid dibad joogaba waxaan leeyahay walaalayaal man banaa lilaahi masjidan baa nebigu sal allahu calayhi wasalam bana allahu lahu beytan fi ljanna ayaynu ku celinaynaa maadaama 11 bilood hore juhdi ku soo jirnay oo juhdigeenaasu ahaa sidii aynu uga midho dhalin lahayn nimcada maanta muuqata ayaa waxaan doonaynaa maanta inaynu walaalihii muxsiniinta ahaa inta halkan joogta mooye intay naga maqan la qaybsanno inay ka soo qayb qaataan qaybta labaad oo weliba inoo bilaabantay oo walaalayaal laba family oo ilaa khayr badan hasi ayaa waxay qaateen dhammaan kharashkii ku baxayay bulukeydka xagga sare afarta qiblo bulukeydkii ku baxayay marka walaalayaal waa garan kartaan masaajidku kanun buu leeyahay waa masaajid labaad waxaan rajaynaynaa markaa in aad nala fahantaan oo nagala qayb qaadataan halkan waxaynu fadhinaa xaflad lagu shaacinayo masaajidka dabaqii labaad masaajidka macalin xirsi jaamaca magaalada caynaba si fadliisa waa la yaqaanaa axabu lbiqaaci ila allahi masaajiduha nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi ilaahay buqadaha ugu jecel yahay masaajid buu jecel yahay masaajid waxaan u mahad celinayaa dhammaanteen ama dhammaan dadkii ka qayb qaatay dhismaha masaajidkan hore sida qiimaha badan u dhisay waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka ha idinku daro runtii maantana waxa weeye qaybtiisii sare sida culimmada hore iyo waxa weye mataqaana wayeelkuba ay sheegeen ayaa la shaacinayaa in waxa weye laga soo qayb qaato aayadahaasoo dhan waxay nagu boorinayaan tacmiirta masaajidka iyo dhisidiisa iyo khayraadka in loo baratamo de waxaynu halka u joognaa maanta waxa weeye inaynu dib u bilowno masaajidka macalin xirsi dabaqiisii labaad